anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga mucaaradka ah ee wadani kana mid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga heer qaran ayaan waxaanu tacsidan u diraynaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen allaha u naxariistee dadkii 8 qof ahaa ee ku geeriyooday dagaalkii waxashnimada ahaa daandaansiga ahaa gardarrada ahaa ee lagu qaaday gobolka Sool gaar ahaan degmada taariikhiga ee Taleex waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un iliyagana ilaahay firdawsi ayaanu uga baryaynaa gacan ka xaqdaran ayaa dishay waxay ahaayeen dadaan waxba galabsan dad gurigoodii jooga dad kibir loogu soo duulay iyo gardarro waxaan baaq u dirayaa xukuumadda maamul goboleedka Puntland waxaan leeyahay waxa weeyaan xaaladaadu allay diliye duulka adaa iiga sii darane waxa weeyaan hadii ay had iyo gooraale waxaad ku doodaan oo aad ku dacwidaan gobolada Sool Cayn iyo bariga Sanaag in ay yihiin dad walaalihiina oo idinka naf iyo maal idin la wadaaga Soomaaliland ay gardarro u sheeganayso war hadii ay taasi jirto waxaan leeyahay maxaad ugu damqan weydeen maxaad ugu diiri weydeen maxay dhimashadoodu idin dhibi weyday waqti walba maxaad kibirka meydkooda iyo dhiigooda ugu daadinaysaan taas waxa halka ka cad in aad tahay geediyow haddaan xaba kugu arkana ka goostay haddaan ka waayana dee kugu dilayba su'aasha la yaab kale ee maskaxdaydu isweydiinaysa dadweynaha reer Soomaaliland talow ma arkaan hadday tahayna iyaga jawaabta laga rabaa hadday maya tahayna inay arkaan baan maanta rajaynaya arinta la yaab kale waxay tahay meydka qofka muwaadinka ah ee taariikhiga ah ee reer Buuhoodle marka uu dhinto waxa la huwiyaa calanka Soomaaliland marka uu nool yahayna waxa la daba dhigaa calanka Soomaaliya waa maxay sababtu waa waxaan runtii maskaxdaydu ay diiday oo aad in badan u la yaabtay haddaan tusaale ahaan u soo qaato ilaahay firdawsaha ka waraabiye siyaasigii weynaa ee Axmed Maxamed Aadan Qaybe wuxuu huwanaa meydkiisa oo aas qaran loogu sameeyay magaalada Hargeysa wuxuuna meydkiisa la saalay calanka Soomaaliland sidoo kale mudaharaadayaashii reer Buuhoodle ee arinta Taleex ka tiiraanyeysna waxay siteen calanka Soomaaliya war miyaanay labadaasi Soomaaliland u wada muuqan war miyaanay labadaasi inaga laftigeena tiiraanye inagu ahayn war miyaanay arintaasi in wax laga qabto aanay u baahnayn waxaan dhageystay waqtiyada kamida khudbad uu sii deynayo indhasheel oo ku magacaaban madaxweynaha Khaatumo ninkaasi wuxuu sheegay in aanay iyagu dhibaataba jeclayn waxna diidanayn waxaan filayaa inay ahayd dabayaaqadii 2012 laakiin wax wada hadal la sameeya ay laayihiin waxaan dhageysanayay iyadoo maamada qaranku waa marwada koobaad ee madaxweynaha ay u jawaabayso habla xisbiga mucaaradka ah ee u cida iyada oo waliba ku hanjabaysa magaalooyinka qaar sida Togwajaale oo kale haddaba waxa la yaab leh maamadu ma xisbiga kulmiyay marwada koobaad u tahay mise qarankan Soomaaliland anigu waan la halmaalay xisbiga iyo maamadaba iyo xukuumadaba wax fara badan oo aanay dadku ogeyn ayaan ogahay balse waxaan leeyahay bidow anigu ku sheegi maaye camalkaagu yuuna ku sheegin anigu waan la halmaalay xisbiga iyo maamadaba iyo xukuumadaba wax fara badan oo aanay dadku ogeyn ayaan ogahay balse waxaan leeyahay bidow anigu ku sheegi maaye camalkaagu yuuna ku sheegin